gabadhan waxay soo galaysaa gurigeeda weliba ku qeelinaysaa bibi balse bibigeeda qoftoo kale ayuu balbaashaalaya tanina waa dareen xanuun badan kadibna xariifka wuxuu bilaabay qofta inuu qariyo markaas qoftiisa been ku qancinaya eedan firfiir waynaysa oo soo dhawaanaysa qoftiisna ku faraxsanta aragtay markaas ay leedahay maxaa kugu dhaco oo tuqaaban tahay qofta hoos joogtana ku ciyaaraysa oo jijiidaysa isagana wuxuu ku dhahay adiga aan rabin raashin ku diyaari bibi markaas Amar Salin waana madax ayuu ka taabanaya eedan way xanaaqaysaa kor ay u soo bixaysaa markaas ay arkaysaa gabadhii gabartan kale markaas ay ku wacaysaa magaceeda waxaan leedahay maxaa halkan ka sameynaysaa eedan gabadhu mujaawis ay ku leedahay ninka wuxuu sameeynaa waa wax doqonnimo ah isagana doqonku buuska qoos leeyahay markaas ay gabadhii ku xanaaqaysaa waxayna leedahay waan idinka tagay isagana wuxuu ugu wacaya magaceeda wuxuu ku leeyahay maxaa kugu dhacay kaale anigii imo isoo la waxaan ay jaceelka markaas ay ku dhaysaa soo laameetay dhada isagana wuxuu ku dhahay waxaan ku dhahay soo laa markaas ay ku leedahay waan ka tagay halkan kuluma joogi karo qoftan eedan waxay ku khilinaysaa intuu ku jecel yahay ka badan aniga uu jecel yahay oo yaabig si xanaajinaysa eedan gabadhu iska bixaysaa waxaan leedahay labadiinaba iga taga dibna xariifka dhar soo qaadanaya isagoo ku khilinaya magaceeda oo wilba dhahayana saara markaan labadooda beegsado baxayaan eedan ay soo cararaysaa waxaan dheesay dhaafa ee wilba aad u khilinaysa waxaan soo bixaysaa banaanka gurigeeda markaas ay ku leedahay iga fogaada ninka ay weydiinay wax ku dhacay eedan markaas ay saar waxay ugu jawaabtaa naagtaada waxay la saxatay aniga ninkeyga markaas ninka isku dayay inuu barbar eedan dharbaaxaysa xariif kalena wuxuu dhahay maxaa qaldan eedan waxay dheesay naagtaada waxay la saxatay aniga ninkeyga markaas ay qofta ku dhasay bibi xabay isxanaajin waxaas waa iska caadi waan ku bari iga raali noqon tanina waa qisada jaceylka ee Saara iyo Khafiifo labadoodii ba hal mar si wada jira waxa ku la khiyaanay lamaanahooda tanina waa dhacda xanuun badan ayaga ku dhacay markaas Khafiifo xaaskiisa wuxuu ku dhahay guriga iga tag ee iska bax Saara ayadana sidoo kale waxay ku leedahay guriga iga tag ee iska bax ay soo dhawaan mar dambe ay soo galin nolosheeda markaani labadoodaba waxay luumiyeen jaceelyaalkooda oo waxa kaliya soo haray ayaga xariifkii bibi lagu magacaabay oo iska baxay waliba isagoo aad u xanaaqsan wuxuu dhahay ayada ay soo laaban doontaa markaas ay Saara waxay leedahay wax walba isku dhamaadeen nolosheeda aniga kaliya ku jira dadkan waxay sheegi jireen ninkeyga kaliya inuu qurux badan yahay waan run oo qof kale aad iga hanatay Saara markaani waxay ku jirtaa nolosheeda mid ugu xameed mar walba iskilmeynaysa murugo iyo jacayl la'aan ay meel la fadhida adiga iska hadlaysa stress iyo isku furaysa waliba ayadoo aad ugu murugaysan waxa uu ku sameeyay bibigeeda markaani Saara irida la gorgaraacay waxay ku qeelinaysaa bax guriga iga tag mar dambe ay soo garaan ayadoo meelanaysa bibigeeda markay soo baxday banaanka ayadoo qeelinaysa qofna ma arkayso dhinacay fiirfiirinaysa markaas fiirinaysa waxay arkaysaa cunto meesha u taalo ayadoo waliba moodaysa cuntadan inuu keenay qof kale Saara markaan cuntada ay fiirfiirinaysa way iska tagaysa ayadoo aan ku qancin waxaan leedahay mar dambe cuntadan oo kale aan la keenin way iska xaroonaysa Saara markaan qof jecel ku baqbaqay ma ayada ka fikiri kartaa xiriiri waxyaabo kale ka dambe way fahmaysaa Saara dariskeeda Khafiifo cuntadan uu keenayo kadib ay markaan galaysaa si ay u dhaad adiga miya balse qofna ma arkayso Saara markaan qalbiga ay ka hadlaysaa waxaan isleedahay subax waliba Khafiifo wuxuu ku keenaa cunto balse saakay cuntadii waxa la socota ubax oo lagu talgalay Saara markaan ay ku khilinaysaa kan maxaa ka khaldan isaga mar walba waxaan uu keenaya kadibna Saara way soo cararaysaa waxaan imeynaysaa irida Khafiifo weena gargaraacaysaa isagana xariifka ma baka daahina irida isla markiiba uu ku furaya waxaan ku leeyahay adiga maxaa ka khaldan sidoo kale waxay dheesay adiga mar walba waxaad keenaysaa cunto ma aniga tasabanaysa oo rabtaa nolosheeda inaad ku soo biirto sidoo kale waxay raacinaysaa mar walba cunto uu keenaysaa dan waxaad keentay ubax maxaa si ka ah Khafiifo isagana uu bistajinayaa markaas wuxuu ku dhahay ugu dambeyn waa tii imaaday Soomaaliya isla markiiba Saara ayuu ku bilaabayaa shumis eedan waa inay xasan dhaay taagaysa markaas ayaan ku dhaysaa adiga Khafiifo maxaad sameynaysaa markaas isagana wuxuu ku dhahay adiga ayaan kugu waashay sidoo kale wuxuu sii raacanaya waad ogtaa sida noo qiyaanin lamaanaheena markaas wuxuu ku dhahay waxaana luusiriin sidaan miyaan ku sii jireena Saarana markaan Khafiifo si qurux badan oo dareen leh u fiirinaysaa isagana uu hadlaya markaas dhowr cadeynaysaa hal mar ayaan ku soo boodaysaa Khafiifo Saara waliba ayadoo muujinaysaa dareen aan caadi ahayn dibna labadoodaba waxay noqonayaan markaan dareen wadaag Saara iyo Khafiifo waligood bixi ahayn dad saaxiibo oo ku wada nool hal xaafado markaan waxa isgaaray labadooda dareen sideed way iskugu soo dhawaadeen ilaa heer waxay gaareen labadooda midba midka kale uu dareenkiisa si xadaaf ah ugu muujiyo Saara ayaa markaan waxay leedahay halkaan uu halku ka bilowday jaceylka iyo dareenka zaydka ee dhexmari doona aniga iyo Khafiifo Saara ayaa sidoo kale waxay leedahay qisadani jaceyl waa mid aan caadi ahayn oo ku bilaabatay dagaal iyo xumaan markaan labadooda midba mid kale uu fiirinayo wuxuu ka amaanaya qalbiga waxayna is dareensiinayaan farxado gaar ah Saara waxay qalbiga iska leedahay ninkan muxuu sidaan oo dhan ugu qurux badan yihiin balse Khafiifo ayaa si caadi u dhahay Saara maxay indhaha sidaan oo dhan ugu qurux badan yihiin markaas ayadana waxay dheesay hadda ayaan rabin adiga kugu dhaho midaasi isagana uu ku dhul cadeynaya Saara markaasi ay Saara Khafiifo waxay dhahaan in kan cabni cabitaankani labadoodna soo fadhiisanayaan xilsi wada jir oo cabayaan cabitaankani markaasi waxay ku leedahay waa sidee nolosha guurka isagana wuxuu dhahay nolosha guurka mar walba mid aad u fiican markaasi Khafiifo Saara wuxuu ku codsanayaa labadooda inay sameeyaan xiriir ayadana waxay ku leedahay maya midaas ma dhacayso sababtoo ah Saara iyo Khafiifo labadooda waxay ahayn dad asxaab ah
saara markaani qafiifo waxay ka diidaysaa inuu la wadaago dareenkiisa waxaanu ku leedahay waxa inoo fiican labadeena bayn aan kala fogaano kadibna saara waxay go'aansanaysaa qafiifo inay kasoo tagto soona aado xaafadeeda balse isagu wuxuu ku dhahay sababaan kala fogaanina waxa fiican inaan isku soo dhawaano sababtoo anaga waxaan dad aad isku yaqaana wuxuuna ku dhahay tan adigu ku aqaan xitaa nafsadeeda ma aqaan sababtoo waxaan dad aad iskugu dhow mar waliba sidoo kale wuxuu sheegay inay aad u qurux badan tahay jeclaan wiligiisba haddana uu jecel yahay rabana inuu nolol la wadaago balse saara go'aankeeda ugu dambeeya wuxuu yahay qafiifo inay ka tagtana banaanka oo aysan wiligoodba dhex marin xiriir isagan mar walba wuxuu dhahay waan isku soo dhawaanayna mar walba aniga adiga ayaa ku baahana balse ayada wuxuu ku leedahay qafiifo ma midaas dhici mayso aniga waa inaan kala tagnaa ayada weliba raacinaysa aniga mar kale marow inuu isu gaaro dhaawacaan ka tagaya qafiifo wuxuu dhahay saara ma midaas ay u sameeyeen balse ayada waxay go'aansanaysaa inay kasoo tagto haweeney soo bixaysa oo waxay soo aadaysaa xaafadeeda qafiifo wuxuu ku qeelanayaa saara balse ayada midaas ma dhageysanayso way kasoo tagaysaa kadibna waxay soo qabsanaysaa telefoonkeeda waxa soo wacaya saaxiibkeedii hore saara way soo bixaysaa iyadoo hadlaysa weliba dhaysa aniga marow inaan sameeyo xiriir cusub man rabo inuu soo gaaro dhaawac kale markii imaada xaafadeeda saara waxa soo dhibinay bibigeedii hore wuxuu ku dhayaa xageed ka imaaday ayadana waxay ku leedahay maxaa ka galay waxaan ugu jawaabay halkan maxaad ka sameynaysaa isagana wuxuu ku dhahay aniga adiga ayaan ku sugayay markaas ay ku dhaysaa waxa ku filnaayo si dariskaaga isagana wuxuu ku dhahay kaliya aniga adiga ayaan ku ruux qoftaasi uma baahni balse waxay ku dhaysaa waxaas aniga ma marayaan sidoo kale wuxuu sheegay biisaha tirada badan inuu isaga u keen jiray uusan u keen jirin dariskeeda markaas waxay ku leedahay meegul kaftamaysaa midaas markaas uu ku dhahay qof aniga iga fiican ma jiro ku keen la adiga cunto biisa iyo waxyaabo kale intaasina waxa ku noolaa kaliya oo taladan waxa rabaa in adiga kugu noolaado ayadana ku qoslaysaa waxaan ku dhaysaa midaas ma dhacayso markaas ay saara ayadoo xarogoynayso imaanaysa waxaan ku leedahay ma ogtahay horta aniga inaan helay qof adiga ka wanaagsan 100% markaas wuxuu ku dhahay qofkaasi ma qof amoolba sidoo kale wuxuu weydiinaya qofka uu yahay qofkaasi markaas wuxuu ugu jawaabaysaa waa qafiifo isaga ayaan rabaa inaan nolol la wadaago halana xiriir inta nolosheeda kadib maan la saxday xal waxaan u sheegaysaa qofkaasi uu kaliya inay rabtay inaan nolol la wadaago markaas uu isagana wuxuu ku dhahay qafiifo waxa uu imaaday xaaskiisa adigana ninkaasi kuma rabo amool miya markuu adiga ku soo fiirinayo markaas ay saara soo cararaysaa waxay imaanaysaa guriga qafiifo si uu ogaato arrintaas inay runta iyo been tahay gudaha soo galaysaa waxay ku qeelinaysaa qafiifo ku aba xagee joogta markaas ay waxay is arkayaan hal mar qafiifo saaxiibadiisii hore waxay ku leedahay halkan maxaad ka qabanaysaa labadoodii ayaana sidaas isku wareysanaya saaran midaan waxay la noqotay layaab ama kaag iyadoo waliba layaaban qoftaan waxay halkan ka sameynayso saara waxay leedahay midaan ma aamin karo adiga halkan maxaad ka qabanaysaa ma waxa ku dhicirba dhaabac arbaad markaas qoftaan waxay ku leedahay waxaad rabtaa aniga inaad la wareegto qafiifo markaas ay ku leedahay dhageyso adiga wiliga waxaad qof aad iyo aad u foolxun waana foolxunta qof kurubtana beeratay ma jirto markaas ay gabar kale waxay bilaabaysaa inay ku jeesto saara markaas ay ku leedahay ulaawo saaxiibkaaga hore qafiifo kaliya aniga iska leh aniga aan nolol la wadaagaya saara ayaa markaan waxay dareemaysaa niyad jab weyn soo bixaysa waxaan ka hormaanaya xabadkeedii hore ayagoo sidaas ka wada hadlaya hal mar waxay maqlaysaa qaylo ka imaanaysa gadaal dambe qafiifo ugu qeelinay gurigeyga maxaa ku keenay bax iga bax isagoo dhahay waliba qoftiisii hore markaas ay ku leedahay marba aniga tii baanta saara ay soo qeelinaysa waxaan ku qeelinaysa adiga kuma baahni aniga ayuu u baahan yahay markaas qafiifo ku dhahay sidee macaanto ayadana wuxuu ugu jawaabaysaa aniga adiga xiriir ma sameeysan karnaa qafiifo isla bariib waxay ku leedahay waxaan rabaa aniga adiga inaan farant ku gelino kadibna aan is guursano ugu dambeyn saara hadalkeeda waxay ku soo gabagabeysay tani waa aniga qisadeeda waliba qisadii xanuunka badneed dadka jaceylkooda wuxuu ku bilowdaa dareen aad u qurux badan balse waxay leedahay aniga jaceylkeena wuxuu ku bilowday xanuun iyo murug aad u fara badan markaas ay saara qafiifo waxay go'aansanayeen gacmaha is qabsan labadoodana ay wadaagaan hol aad iyo aad u qurux badan labadii kalena way xanaaqayaan labadooda wayna israacayaan waliba iyagoo la yaaban dadkan waxay sameeyaan sababtoo ah iyaga dadkan waxay u haysteen inay yihiin doqomo hadalka ugu dambeeyay saar wuxuu ahaa jaceylka bilowgiisa iyo macaankiisa waxaa la dareemaa waqtiyada adag